caawa Iiraan jawaab baa laga sugayay inay ka bixiso soo jeedintii Trump ay ku aadanayd hanaanka loo gabagabayn karo colaadan iyo waliba inay aqbasho hadalkii ka yimid dalka Mareykanka ee la soo mariyay Pakistan laakiin halkii cir laga filayay ayaa ceeryaama ka timi wasiirka amuraha dibadda ee wadankaasi Abbas Araghchi waa Iiraan waxa uu leeyahay col iyo nabad wax u dhaxeeya ma jiro mana aqbali doona xabad joojin 45 maalmooda sida daraadeed Trump waa inuu aqbalo dagaalka inuu sii socdo haddii kale waa inuu ku dhawaaqo in uu dagaalka ka baxay wadankeena istiraatiijiyad baa uga taalla buu yiri dagaalkan malaf adag baa gacanta laga saaray dowladda Pakistan rajadii diblomaasiyaddana waxaad moodaa inay ceel dheer ku sii dhacayso tafaasiil baan idinkaga hayaa nuqulada qoraalada caawa dowladda Iiraan ay u gudbisay Pakistan iyo Trump oo ka hadlay aqalka cad oo tilmaamay inuu hal maalinba ku soo gabagabayn karo waxa la yiraahdo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan weerarkan ku qaado dunida waa ka sheekayn doontaa ayuu yiri luqadii diblomaasiyaddu waa daciifaysaa laakiin tii dagaalka ayaa sii xoogaysanaysa fahadi ninka lagu magacaabo ee taliska kacaanka ka tirsan ee dowladda Iiraan waxa uu leeyahay gantaalaha aan haysano iyo diyaaradaha dronisku waa kuwa nagu filan sida daraadeed ma jiraan sababa aan dagaalka uga baaqsan karayno hanjabaadaha diblomaasiyadda xiisadan meesha ay gaartay war baan idiga siin doonaa waxaan intaa raaci doonaa carabta oo caawa dhawaaq dhiila ah uu ka wada baxayo meel kasta oo carabi joogta caawa haddii ay noqon lahayd wadamada khaliijka qayladhaantooda ayaa baxaysa oo dowladda Iiraanba waxa ay sii qaaday fiidkii hore ee caawa duqaymihii ugu xooga badnaa imise wadan baa la weeraray muxuu yahay shanqarta ay sii daayeen Sacuudiga iyo wadanka isu taga Imaaraadka Carabta sheekan idiga siin doonaa iyana arrintaasi Mujtaba Khamenei ayatullaahiga wadanka Iiraan waxa uu leeyahay dagaalka in la sii wado waa xalka jiritaanka dowladnimadeena in la isdifaaco waa muhiim arrinta Hormuz xiisadu waa sii kululaanaysaa wararkaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa khiyaarta ay nala socoto ay dambeyn jawaabtii laga rabay dowladda Iiraan waa bixisay caawa dalka Pakistan waxa gacanta laga saaray malaf si weyn loo soo dhiraandhiriyay oo inta badan taladiisu ay lahaayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan Tehran waxay ku baaqday dagaalka inuu sii socdo inay wax weyn oo mushkilada aysan u arkin oo sababtu ay tahay nin qoyani biyo iskama dhowro dagaalka oo sii xoogaysta ayaa hadda u arkayaan fursadda jiritaankooda Abbas Araghchi oo la hadlay Maxamed Isxaaq Dar wasiirka amuraha dibadda ee Pakistan waxa lagu yiri col iyo nabad wax u dhaxeeya Pakistan ma taqaano aan iraahdo Iiraan ma taqaano Pakistan taa ha qaadato dalka Mareykankana ha loo geeyo wax la yiraahdo 45 maalin oo xabad joojina ma soconayso dagaalku waa in si dhameystiran loo bixiyo ama loo joojiyo magdhow waa in la siiyo dowladda Iiraan marinka Hormuz waa siyaasad midaysan in laga yeesho iyo waliba in cunaqabatayntii muddada dheer la saaray wadankaasi laga qaado caalamkana loo sheego wadanka Iiraan la yiraahdo in lagu gardarooday tani haddii ay dhacdo waxa ay taabanaysaa dalka Mareykanka jiritaankiisa haybadiisa dowladnimo iyo sareyntiisa caalamka sida wadankaasi uu isku qiimeeyo Israa'iilna tani waa u dhimasho Iiraanna waa u nolol iyo bulaal cusub laakiin telefishinka Al Jazeera waxa uu leeyahay dhawaqa Iiraan caawa ka yimid waxa uu guud ahaantiiba meesha ka saaraya kii ama jabaqdii diblomaasiyadda halka codadka dagaalka iyo luqadda rasaastuna ay isbedeli karayso oo ay noqonayso mid laga taliyo Trump qudhiisa caawa hadlay isna waxa uu leeyahay dalkan la yiraahdo Iiraan maalin qura ayaan ku soo gabagabayn karaa ee armay nabadda inay qaataan dani ugu jirtaa haddaba Trump oo maalmihii ugu dambeeyay lugaha dhiiqa kula jiray hadda waxa la eegayaa bal talaabada uu qaado iyadoo ay ku eg tahay waqtigii ugu talagalay xabad joojinta inuu fursad siinayo ilaa inta dowladda Iiraan ay arrintaasi qaadanaysa haddii kale Iiraan uu dib ugu celin doono qarniyadii aadanahu uu ku noolaa
dhirta iyo dhagaxyada hoostooda oo macnaheedu yahay in uu baabi'in doono guud ahaanba aas-aasiyaasha nolosha iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha. telefishinka aljaziira oo hadlaya waxa uu leeyahay dowladda iiraan 10 qodob oo ay gudbisay 3 ka mid a waxaa ka mid ah in si buuxda loo soo afjaro dagaalka oo maraykanku yidhaahdo raalli ahaada, dagaalkan sidaan u malaynaya maaha, waa la igu hoday, haddana dib u kurashaan sameeyey, waana ka baxaba guud ahaantiiba wararkii aan ku qaadaya dowladda iiraan. iyo sidoo kale in la qaado dhammaan cunaqabataynta uu yidhaahdo maraykanka uma qalanta iiraan waddan sidaan gob u ahayn cunaqabatayntan lagu sii hayo. dhinaca kale waxay leedahay iiraan waa in la dejiyo brotokool rasmi ah oo loogu talagalay buu yidhi marinka hormus oo hadda ah mid istaraatiiji ah aadna loo raadinayo. dalalka turkiga masar iyo bakistan oo dhexdhexaadintan sii waday hadda waxaad u moodaa inuu gabal u dumayo. xaaladda halkaasay taagan tahay oo diblomaasiyadda ninka hagaya dowladdan la yidhaahdo iiraan waa ninka la yidhaahdo taliyaha taliska dhexe ee militariga axmed fahadi, kaasoo sheegay in uu aaminsan yahay in iiraan ay guul ka gaartay dagaalka islamarkaana ay diyaar u tahay in aanay marnaba tanaasulin. dhinaca kale marka la eego ninkan weli waxaa ku taagan geeridii saaxiibadii oo malaha gabayii waxa uu xasuusanayaa ahayd 16 oo wada gaara gocanaya mooye mid weeye haddii la isgalo oo geel la kala qaado gurmad noqotaya gabayii ahaa ayaa ninkan u shidan oo saaxiibadiisii ka gola dagaalamayay ee garbihiisa taagnaa ee wada garbaha casaayuu leeyahay. marka waxa uu leeyahay anoo gantaalaan haysta raggaasi inay ciilkaambi god kula jiraan socon mayso. marka arrimahaasi ayaa caawa uu leeyahay fahadi taliyaha taliska dhexe ee militariga ee dowladda iiraan wuxuu leeyahay gantaalana waan haystaa, diyaarado igu filanna waan haystaa ee maraykanku halkuu gaaro ha ka miraysto oo laantuu gaari kara wax haga goosto. marka xiisadu waa sii xoogaysanaysaa. trump oo isna hadlay waxa uu leeyahay horta dalkan iiraan la yidhaahdo hal habeen ayaan qudhiiba ku baabi'in karaa, marka sabab ay ii hortaagnaan karaan ma jiraane. isagoo si hadlaya waxa uu yidhi haddii aysan jirin in nabad la qaadanayo oo trump ay ka diidaan hadallada aan u jeedinaya buu leeyahay ma jiri doonaan wax la yidhaahdo buundooyin gawaari ay dul maraan, xarumo tamareed ama koronto lama arki doono, waddankaasna xiisadiisa waa cuslaan doontaa. waxa uu sidoo kale sheegay in maraykanku uu leeyahay awood aad u sarraysa oo wax kasta ku burburin karo. sidaa daraaddeed dagaalkan iyo xaaladiisu meeshii la gaaro aad gaarsiisaan ayaan gaarsiin doonaa ayuu ku doodayaa. ninkaasi odaga ah waa madaxweynaha dalka maraykanka Trump oo maanta ka hadlayay aqalka cad maalinta Easter la yidhaahdo ee dadka masiixiyiinta ay u dabaaldegaan. arrinta kaloo la yaab kale waxay tahay Trump caawa inuu leeyahay war shacabka Iiraan oo horta waa annagan dagaalamayna oo dowladdan diidan oo gantaalaha meel walba ku garaacayna maad kacdaan oo dowladdan nala ridaan. odaga waa isbeen fariimay. waxa uu leeyahay dadka qaar hadalka sidaa u dhigaya waxa uu leeyahay fariimaha igu soo dhacaya iyo dhambaalla ka imaanaya shacabka Iiraan oo dadku waxay leeyihiin Trump howl fiican baa samaysay, madaxweynaha dunida ugu awoodda badan baa tahay, marka dowladdan la yidhaahdo Iiraan ha ka joojin dagaalka ee ilaa inta taliska wadaadada aad naga dulqaadayso iyo ciidamada dowladda ee la yidhaahdo ilaalada kacaanka jamhuuriyadda miyuu dagaalka wadu qaymahana samee. sidaas ayuu leeyahay. marka wuxuu leeyahay war shicibo ani waan diyaarsanahay inaan idin garab istaago, marka sidaa daraaddeed dagaalka soo gala hawshana wada waana idin garab taagannahay. marka Trump waa labaclabacaynayaa. soomaalidana waxay tiraahdaa labaclabac war odayeed maaha. Trump xaaladaasaa marka caawa haysata. hogaamiyaha waddanka Iiraan Ayatullaahi Mujtaba Khamenei ayaa isna hadlay. waxa uu leeyahay dilalka iyo weerarada lagu hayo saraakiishayda madaxda qarankan hogaamiyaasha jamhuuriyadda islaamiga Iiraan militarigeena ma weeqayso jihada dagaalkana nagama weecin doonto. fariinta ninkii Trump ahaa
hal la iga gaarsiiyo iyadoo maanta lasoo bandhigaya muuqaallo ku saabsan Khamenei waa ninka cusub ee talada waddanka Iiraan haystee oo fagaarayaasha soo istaagay ninka odagana warkaas ayuu goor dhaweyd sii daayay haddii aan eego dhinaca caawa waxa dhacaya nimankii Iiraan ahaa meel walba gantaala ay asqada uga dhigeen wadamadii khaliijka mid aan cabanayn caawa ma jiro mid waxa uu leeyahay waxbaan qabtay kuwa waxay leeyihiin 2 iyo 3 baa ay daba martay kuwa waxay leeyihiin shacab baa iga dhaawacan halka kuwa kale ay leeyihiin gantaalaha dawladda Iiraan haddaan xal loo helin dagaalka dagaal gobeed ma aha oo nasasho waa naloo diidan yahay carabtii caawa qaarkood baa sidaa oranaysa ilaa iyo 9 dhacdo ayaa laga diiwaan geliyay maanta waddanka Urdun ama Jordan la yiraahdo 2 qof ayaa ku dhaawacantay qasaaraha hantiyadooda weynna waa soo gaaray kadib markii ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan ay weerareen Imaaraadka 12 gantaalo Palestiga ayaa lagu weeraray 2 gantaalo cruisena waa lagu riday 19 diyaaradood oo kuwa iswadaana waa lagu duqeeyay dhaawac qof ajnabi ah oo ku sugnaa magaalada Abu Dhabi ayaa la sheegay weerarada diyaaradaha drone-iskana waaba tirapel caawa siday u socdaan wasaaradda dawladda Iiraan arrimaha caafimaadka waxay leeyihiin tan iyo bilowgii dagaalka markii uu bilowday qasaaraha shacabkeena soo gaaray waa 220 qofood oo dhibaatooyinka dawladda Iiraan gantaalaheeda laga diiwaan geliyay dalka Qatar waxay leeyihiin ciidamadu waxay ka hortageen maanta diyaarado iyo gantaalo la soo riday Sacuudiga waxa uu leeyahay 2 drone oo nagu socota waan ka hortagnay dalka Kuwait waaba halka ugu daran koob 14 gantaalo Palestiga ayaa lagu garaacay 2 cruise ayaa wehlisay iyo 46 diyaaradood oo kuwa iswada ah dhaawacyo ayaa ka dhashay bay leeyihiin burbur ka dhacay qaybo ka mid ah kuwan oo la inagu soo turo gantaalaha iyo drone-iska sida dawladdaasi ay ku waramayso dalka Ciraaq isna waxa uu ka mid noqday wadamada Carbeed ee martigelinaya duqeymaha dawladda Iiraan 4 diyaaradood oo drone ay leeyihiin waxay ku qarxeen 2 saldhig oo Mareykanku uu halkaasi ku leeyahay xiisadda dagaalkan waxay u muuqataa inay ka sii darayso General Asim Munir taliyaha ugu sarreeya ciidamada Pakistan oo hawsha wadana waxay u muuqataa nin Ahmed Fahadi la yiraahdo oo isaga u dhigma oo waddankaasi Iiraan ah wixii ay Mareykanku soo mariyaanba in Maxamed Isxaaq Daar uu ka soo qaadayo Mareykanka General Asim Munir loo geynayo waa dhinaca Pakistan marka aan fiirino kadibna Abbas Araghchi loo gudbinayo Abbasna oo Ahmed Fahadi u geynayo waxa Iiraan 2 generaal oo hawsha ku jira ayaa midna waxa uu noqonayaa bal waxa Mareykanka noo dhiibayo haddii aan nahay Pakistan aan iska fiirino dhinaca Iiraanna markii wasiirka amuraha dibadda Abbas Araghchi loo geeyay Ahmed Fahadi baa oranaya balkeen waxaanay soo qoreen isha maray kadibna waxa uu leeyahay maya ima qanaan marka Trump waxa la leeyahay bal haddii aad awoodo cirka inaad ay ka soo daadin karta la kaalay dawladda Iiraan jawaabteedii caawa warkiyo kooban oo daasad ku jira waa intaas Mareykanka marka la eegayo bal tilaabada uu qaado meesha ay taagan tahay iyo waxa ay sameeyaan waqtigan u dayn doonaa tabinadeena xigana waan ku fiirin doonaa